kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal halkaad naga daawanaysaan waa Boundless Media wararkan maanta idinku hayno qodobadiisa waxaa ka mid noqon doona nisa oo sheegtay in xilkii agaasimaha uu la wareegay gaashaan la sare Yaasiin Farey al-shabaab oo shaacisay magaca iyo dalka uu ka soo jeedo ninkii fuliyay weerarkii Camara 40 maxaabiis oo ku dhimatay dab ka kacay xabsi ay ku xirnaayeen daawadayaal ku soo dhawaado qodobadaas oo faahfaahsan qoraal soo dhigay barta rasmiga ah ee Twitter-ka ee hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ayaa lagu sheegay in xilka agaasimaha uu la wareegay gaashaan la sare Yaasiin Farey uu xalay magacay madaxweynaha muddaxileedku soo dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana xilkaasi horay u hayay Faad Yaasiin waxaa taliska nabad sugidda sirdoonka qaranka ka dhacay munaasabad uu xilka kula wareegay taliyaha cusub ee kumeel gaarka ah ee hay'adda sirdoonka nabad sugidda qaranka gaashaan la sare Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud waxaan alla ugu rajaynaynaa inuu u fududeeyo mas'uuliyadda culus ee uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka u egmada ayaa lagu yiri qoraalkaasi sidoo kale Rasaar Roble ayaa ka hor yimid magacaabista taliyaha sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka gaashaan la sare Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud qoraal rasmi ah oo soo saaray Roble ayaa sidoo kale ku amray sareeyo guud Bashiir Maxamed Jaamac oo shalay xilka siyahayaha nisa u magacaabay inuu si degdeg ah u bilaabo shaqadiisa ilwareedyo ayaa noo xaqiijiyay inuu jiro qorshe u gelinkii dambe ee maanta xarunta nisa ay ku tagi doonaan ra'iisul wasaaraha iyo sareeyo guud Bashiir Maxamed Jaamac haatana ugu yaraan 40 maxaabiis oo ku jiray xabsi ku yaala dalka Indonesia ayaa dhintay kadib markii dab uu ka kacay meel ay ku xirnaayeen kumanaan maxaabiis subaxdii hore ee saakay afhayeen u hadlay wasaaradda cadaaladda Indonesia oo la yiraahdo Rika Arbenti ayaa sheegay in dabka uu ka bilaawday qaybta C ee xabsiga Tangeranga oo ku yaala duleedka caasimadda Jakarta Arbenti ayaa sheegay in dabka la damiyay saacado badan kadib ugu yaraan 8 maxaabiis ayaa dhaawacmay kuwaasi oo ay ku jireen 8 aad u daran oo loo qaaday isbitaal ku yaala Tangeranga in ka badan 2,000 oo maxaabiis ayaa ku xirnaa xabsiga Tangeranga iyadoo 122 maxaabiis ay ku jireen qaybta uu dabka ka kacay ee C Arbinta ayaa sheegay in sababta dabkani oo geystay dhimashada badani ay ku socoto baaritaano la xiriira arrintaas sidoo kale kooxda al-shabaab ayaa shaacisay magaca sidoo kale dalka uu ka soo jeedo ninkii fuliyay weerarkii ismidaaminta ahaa ee dhawaan ka dhacay deegaanka Camara ee koonfur goboleedka Mudug kaasi oo geystay khasaaro xoogan magaca ninka fuliyay qaraxii ismidaaminta ahaa ee uu ku bilaawday weerarkaasi ayaa kooxda al-shabaab ku sheegtay Cabdiraxmaan Zaynuddin Cali oo magaciisu afgarashadu u ahaa Haashim kaasi oo ay shaacisay inuu sidoo kale ka soo jeedo wadanka dariska ee Kenya sidoo kale idaacadda Andalus oo ku hadasha afka al-shabaab ayaa baahisay wareysi laga qaaday ninkaasi ka hor inta uusan weerarka geysan ayaa sheegay inuu ka dhashay magaalo xebeedka Mombasa kuna barbaaray isagoo oo markii dambe ku biiray al-shabaab kadib markii uu ka soo safray Kenya Cabdiraxmaan Zaynuddin Cali Haashim ayaa wareysiga marka laga qaaday ku hadlayay luqadda Sawaaxiliga wuxuuna fariin u diray dhammaan dadka muslimiinta ah wuxuuna hadalkiisa ku bilaabay sida tan fariinteeda ugu horeysa waxaan u dirayaa muslimiinta ku nool dhulka gaalada waxaana leeyahay soo haajira ayuu ku yiri Cabdiraxmaan Zaynuddin Cali Haashim ayaa sidoo kale sheegay inuu al-shabaab ku biiray sanadkii 2014 isla markaana uu qayb ka galay dagaalo kala duwan oo ka dhacay gudaha Soomaaliya weerarkii ismidaaminta ahaa oo ka dhacay Camara oo xigay dagaal toos ah ayaa dhaliyay khasaaro xoog leh oo soo gaaray qaar ka mid ah ciidamada haweenka iyo saraakiisha waxaana sidoo kale al-shabaab ay ku qabsadeen hub iyo gaadiid daawadayaal intaas ayaa ku soo afmeeraya war wixii dal iyo daafaha caalamka aan idinkaga hanay wararkeena maanta waxaa idiin soo saaray oo idiin akhrinayay anigoo Cabdinajiib Cabdullaahi Najiib Akhyaar intaan wararkeena dambe dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo fi amaanillah